Koolada Super Bluegta ayuu afka kaga shubay si aysan u maqlin dadku qayladeeda. Waxa ay istiri kala bax fartaada halkan si ay dadku ku arkaan, laakiin farteedii ayuu jaray. Fadlan waxa ka codsanaya muuqaalkan like saarto haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelka, subscribe noo saar. Halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta. Koox dhalinyaro ayaa waxay wataan laba gaari, kadibna waxay u socdaan magaalo lagu magacaabo Lucina si ay u soo daawadaan ciyaar halkaa ka dhacaysa. Laakiin waxa uu noqon doonaa safar aysan ka soo laabanayn dhammaantood. Habeenkii oo dhan ayay soo socdeen kadibna waxa ay go'aan ku in habeennimada inta ka dhiman halkan ay ku nastaan. Mid kasta waxa uu diyaarsanayaa meeshii oo caawa seexan lahaa, iyagoo ku eeganaya tooshkan. Cabsi badan kama qabaan kayntan aadka u weyn ee dhex seexdeen caawa. Waxaa hal mar si lama filaan halkan usoo istaagaya gaarigan. Way dhibsanayaan waxayna ku leeyihiin gaariga leerkiisa naga dami, laakiin ma uu maqlayo. Cid ka soo degaysa ma jirta gaarigan, ilaa dhammaantood ay qayliyeen kadib markii ay dhibsadeen tooshka indhaha laga qabtay. Gaarigii waa u soo dhawaaday welina waxa uu ku hayaa fuulka. Ilaa mid ka mid uu soo qaatay dhaladan kadibna waa uu ku turaya isagoo ka jabiyay gaariga leerkiisii. Waa ay qaylinayaan dhammaantood waxayna ku leeyihiin khalad ayaa samaysay, laakiin ma uu dhageysan saaxiibadii. Waxa uuna sugayaa in cid halkan ka soo baxdo si uu la dagaalamo, laakiin gaarigii waa uu iska laabtay. Markii ay arkeen gaarigii inuu meeshii iskaga tegay, waa ay soo laabteen dhammaantood waxayna ku soo laabteen meeshii ay caawa seexan lahaayeen. Waa iska seexdeen habeennimadii halkan. Subaxnimadii ayaa waagu bariyay kadibna ninkan ayaa soo baxaya waxa uu kicinaya saaxiibadii. Saacadda ayuu fiirinaya waxaana ogaaday inay waqtigii ay bixi lahaayeen ay dhaaftay. Dhammaantood waa ay isdiyaarinayaan waxayna doonayaan inay safarkoodii hore usii wataan. Alaabtoodii oo dhanna waxa ay saaranayaan gaariga. Labadan gabdhood halkan ayay suuli u yimaadeen, ilaa markii dambe ay u soo ureen wax aad u qurmuun. Way la yaaban yihiin qarmuunka ka soo baxaya kaynta. Waa ay soo dhaqaaqeen kadibna waxa ay soo raaceen meesha uu qarmuun ka soo baxayo, laakiin gabadhan oo lagu magacaabo Carol ayaa markiiba siibatay. Kadibna waxa ay ku dhacday godka halkan ku yaala. Waxa ka buuxa xayawaano badan oo halkan lagu cunay, waana meel la iskugu keenay xayawaano kala duwan baktigoodii. Si lama filaan ayay ku arkaysaa gacan bini'aadan oo halkan ka soo taagan. Waa ay qaylinaysaa ilaa markii dambe ay u soo carareen saaxiibadood. Saaxiibkeedu Wade ayaa u soo ordaya kadibna waxa uu ka soo saarayaa godkii. Dhammaantood waa ay yaabayaan qarmuunka halkan ka soo baxaya. Iyagoo halkii taagan ayaa gaarigan halkan yimi, kadibna waxa ay fiirinayaan gaarigan halkan yimi. Gadaal ayuu soo baxay gaarigii, waxaana xaggiisa dama saaran haraagii ka soo haray hilibkii uu soo qashay. Kadibna kudaafadan ayuu kusoo tuurayaa lafihii iyo hilibka wixii ka soo haray oo dhan. Waxa uu arkayaa inay fiirinayaan gacanta bini'aadanka ee halkan ku jirta, isla markiiba gacantii ayuu soo fujinayaa. Waxa uuna tusinayaa inaysan ahayn gacan bini'aadan. Intaas kadib waxa ay weydiinayaan inay u dhowdahay meel lagu hagaajiyay baabuurta. Mid ka mid ah gaariyaashoodii ayaa xumaaday, laakiin waxa uu ku leeyahay tuulada wax yar ayay jirtaa. Haddii ay u baahan tihiin laba qof igu soo dara aniga ayaa kaxaynaya si ay u soo qaataan qalabkii ay u baahnaayeen. Ugu dambeyn waxaa lagu daray Wade iyo saaxiibtii Carol. Dhammaan intii kalena waa iska soo dhaqaaqeen. Gaarigii ayuu soo dhaqaajiyay ninkii, waxaana la saaran Carol iyo Wade. Ninkii waxa uu fiirinayaa gabadha jirkeedii isagoo si carala u eegaya ilaa uu markii dambe keenay magaaladii. Gaariga ayay kasoo degeen waxaana dhex lugeynayaan magaalada. Kaniisadan ayay yimaadeen kadibna albaabkii kaniisadda ayay furayaan. Waa ay ka soo baxayaan mar kale. Ninkan ayaa soo baxaya waxaana lagu magacaabaa Bow. Waxay ku leeyihiin waxa u baahannahay cidna caawisa, laakiin markiiba waxa uu ku oranayaa saacad iyo bar kadib ayaa idiin soo laaban doonaa. Waxa ay ku khasban yihiin in muddo hal saaca ay dhex lugayaan magaalada. Gurigan aadka weyn ayay gudaha u soo galayaan. Ugu dambeyn ilbaabkii ayay iska fureen kadibna waxay u soo galeen gudaha. Dadka halkan taagtaagan oo dhan maaha dad bini'aadan ah oo nool, laakiin waa dad u eg sida boombalaha ama caruusada oo kale. Eegan ayuu arkaya halkan taagan, kadibna waa u soo dhawaanaya isagoo u malaynaya inuu yahay eeg artificial, laakiin waa uu ku qaylinaya dhulka ayuu ku dhacayaa. Carolna aad ayay ugu qoslaysaa saaxiibkeed waxa ku dhacay. Weli waxay ku dhex jiraan xaruntii ilaa ay markii dambe ka aragtay Carol daaqada qof nool oo soo fiirinaya. Waa ay isku naxday ilaa markii dambe ay isku dayday inay guriga ka soo baxdo. Saaxiibkeed Wade waxa uu fiirinayaa daaqadii laga soo fiiriyay, laakiin waxa uu ku leeyahay halkan cidima joogto. Mar kale ayay soo ordaysaa iyadoo aad u naxsan, kadibna waa uu fiirinaya waxa uu ku leeyahay maxaa ku helay, laakiin waxay ku leedahay halkan maaha meel caadi ah. Way isaga soo baxayaan iyagoo markii dambe yimi geerishkan cidlada ah. Laakiin markiiba Bow ayaa halkan soo istaagay kadibna waxa uu ku leeyahay ka soo qaata alaabta u baahantiin oo dhan. Ilaa markii dambe uu sheegay in mid ka mid ah alaabtii ay u baahnaayeen uu ka maqan yahay halkan, laakiin waxa uu ku oranayaa gurigayga ayuu yaalaa. Haddii aad u baahantiinna waa idin soo siinayaa si aad ugu samaysataan gaarigiina. Waa ay soo lugeynayaan ilaa markii dambe ay yimaadeen gurigii. Kadibna Carol ayuu ku oranayaa Bow gaariga ha ka soo bixin, halkan ku sugo walaalka. Wade ayuu soo kaxaynaya waxauna ku leeyahay kaale alaabtaadii soo qaaday ilaa ay markii dambe gurigiisii soo galeen. Wade waxa uu fiirinayaa guriga alaabta taaloo dhan, halka Carol ay ku sugaysaa banaanka. Kadibna gaariga ayay daaranaysaa iyadoo aad u shakiday. Waxay fiirinaysaa inuu yahay gaarigii maalintii dhaweyd soo weeraray. Isla markiiba gaariga hoonkiisa ayay taabanaysaa si uu walaalkeed u soo baxo, balse nasiib darro walaalkeed lugtii ayaa laga jaray. Kadibna dhulka ayuu ku dhacayaa, ma arka cidda dilaysa. Waa uu gurguranayaa isagoo isku dayaya inuu isdifaaco, laakiin cidna uma jeedo. Ilaa markii dambe caloosha mindi laga geliyay. Kadibna waa uu baryaya waxa uu ku leeyahay dilin, ninkan maaska qaba ayaa dilaya. Carol waxay wacaysaa telefoonka si ay ugu sheegto saaxiibadood, laakiin markiiba gabadhan telefoonka waa kasii jeesanaysaa waxayna ku jirtaa romantic. Carol way cabsatay waxayna isku soo xirtay gaarigii, laakiin Bow waxa uu ku jabinayaa daaqada. Lugta ayuu soo jiiday ilaa ay markii dambe gaarigii dhaqaajisay. Bowna waxa uu ka dhacayaa gaariga. Waxay isku dayaysaa inay meesha ka baxsato ilaa markii dambe gaarigii uu
ka istaagay way kasoo degtay gaariga iyadoo isku dayaysa inay baxsato halka saaxiibkeed la jiidayo Carol darbigan ayay ku dhuumanaysaa halka saaxiibkeed way dharkii oo dhan laga saaray kadibna waxa uu ku durayaa ilbad si uu jirkiisa u bedelo ugana dhigo muuqaalka qaybtiisa hore dadkii aad ku soo aragteen ee ahaa boombalaha ama caruusada magaaladii ayay soo dhex istaagtay magaaladan qof ma joogo aan ka ahayn Bow iyo walaalkii kaniisadda ayay soo gashay iyadoo ordaysa laakiin waxay arkaysaa dadka halkan joogo dhan inaysan ahayn dad nool waana sanamyo aan noolayn laakiin Bow waa uu ka damiyey waxauna soo galay kaniisadda waxa uu raadinayaa gabadhii Carol ahayd Carolna waxa ay ku dhuumatay miiska hoostiisa iyadoo aad u baqsan laakiin markiiba waa ay ka soo carartay kaniisaddii halka uu soo baxsanayo Bow laamigii ayuu ku qabtay kadibna waxa uu qabanayaa dhunta dhabarka ayuu soo saartay kadibna waxa uu keenay meeshan geerishka ah isagoo geliyay xagga hoose ee basementiga kadibna waxa uu ku xirxirayaa kursigan saaxiibadood waxay ku wareersan yihiin meeshay aadeen labadoodii waxayna raadinayaan iyagii waxa ay yimaadeen magaaladii ay u soo direen Wade iyo Carol kadibna geerishkana ayay imaanayaan waana geerishkii ay ku jirtay ilaa uu markii dambe Bow maqlay cod xagga sare ka yeeraya kadibna afka ayuu qabanayaa gabadhii laakiin saaxiibadeed ma oga waxayna dhex wareegayaan geerishkan cidlada ah Bow waxa uu ka fiirinayaa xagga hoose markiiba kooladii ayuu afka ka jarayaa waxa uuna afka kaga shubay kooladan loo yaqaano super blue si aysan u qaylin waxa uu marsinayaa mid ka mid ah ciqaabtii ugu xumeed qof in aadan la marsiiyo Carol afkeedii oo dhan waa isku dhigay mana awoodo inay hadasho Bow waa uu ka soo dhaqaaqay kadibna waxa iska dhigaya qof geerishkiisa xiranaya ilaa uu markii dambe neeg arkay kadibna waxa uu weydiinaya inuu arkay wiil iyo gabar isla socda laakiin markiiba Bow waxa uu ku oranayaa maya maan arkin Carol waxay maqashaa codka walaalkeed waxaana isku dayaysaa inuu fahmo inay hoos ku jirto shabaqan ayay isku dayaysaa inay farta kala soo baxdo ilaa uu markii dambe arkay kadibna xaggeeda ayuu isku badinayaa Bow isagoo ka qarinaya neeg isla markiiba birtan ayuu la soo baxayaa kadibna waxa uu kaga qabanayaa farta isagoo ka jaray fartii oo dhan walaalkeedna halkan ayuu taagan yahay mana arko Carol aad ayay u cabaadaysaa ilaa ay markii dambe xanuun dartiis ay afkii kala furtay isla markiiba walaalkeed ayaa maqlay ilaa uu markii dambe Bow isku dayay inuu dilo laakiin waa uu iska qabanaya waana iska celinayaa isla markiiba uu soo cararaya neeg waxauna soo galayaa garaashkii kadibna waxa uu ku xirayaa albaabka aad ayuu u xanaaqsan yahay Bow neeg gudaha ayuu soo galayaa waxauna raadinayaa codka walaasheed meesha uu ka soo baxayo ilaa uu markii dambe arkay walaashiis kadibna wuxuu arkaya inay farteedii go'an tahay silac iyo rafaad badan ay ku jirto halka saaxiibkiis kale uu soo galay meeshan kaniisadda ah kadibna waxa uu fiirinayaa dadkan waa uu la yahaban yahay nasiib darro waxa uu arkayaa saaxiibkiis Wade waxauna arkaya inuu yahay isagii laftirkiisii waa uu soo dhawaanaya isagoo isku dayay inuu taabto laakiin markiiba waxa soo baxsanaya ninkan waxa uuna la dhashay Bow waana laba dila ah dadkii magaalada joogo dhanna waa ay dileen ugu dambeynna neeg saaxiibkii waa la dilay halkan waxa ku baasharaya oo waqti ku qaadanaya ninkii Afrikaanka ah iyo gabadhan kadibna waxa uu wacaya saaxiibkii laakiin waxa ka qabanaya qof uu codkiisa fahmi waayay intii uu telefoon ku mashquulsanaya waxa uu imaanaya Boy walaalkiis waxa uuna nafta dhaafiyay labadoodii si xun ayuu u dilay waxa uuna ka jaray qoorta tiimkiina waxa ka nool Carol iyo walaalkeed Carol waxa uu arkaya ninka boombalaha kadibna waxa uu ka qaadanaya falaarta uu gacanta ku hayo laakiin markiiba waxa soo weeraraya Bow waxauna ku dhufanaya xabad muraayada ay ku dhacaysa xabadii way soo cararayaan kadibna waxay soo galayaan meeshan shaneemada ah waxaana ka socdo film laakiin dadka daawanaya ma aha bini'aadan nool waxaana samaystay Bow iyo walaalkiis Bow waxa uu soo galayaa shaneemadii halka Carol ay iska dhigayso inay tahay mid ka mid ah boombalayaasha meesha yaala kadibna waxay fiirinaysaa geesaheeda ilaa uu markii dambe neeg uu ku dhuftay falaar kadibna waxay kaga dhacaysaa gacanta Bow mar kale ayuu soo kacayaa laakiin mar kale ayuu ku dhufanayaa falaar waxa uuna ku dhacayaa dhulka Carol waa ay fiirinaysaa waxayna ogaanaysaa inuu nool yahay in kale iyadoo aad u cabsanaysaa ugu dambeyn waa ay ka soo baxeen meeshii kadibna waxa ay imaanayaan gurigii uu lahaa Bow waa ay soo galayaan gudihiisa waxayna arkayaan waraaqahan waxay ogaanayaan Bow iyo walaalkiis inay ahaayeen mataano wada dhashay iyagoo isku dhagsanna ay ka soo baxeen caloosha hooyadood aabahood oo dhakhtar ahaa ayaa qalliin ku sameeyey si uu kala fujiyo labadiisii wiil laakiin nasiib darro Bow walaalkiis waxa uu noqday mid wejigiisa oo dhan uu fuqsan yahay kadibna hooyadiis ayaa waxa u samaysay maaskiga wejiga la gashto si aysan ugu qoslin dadku wiilkeeda laakiin waxa ay noqdeen laba dilaa ah dadkii tuulada joogo dhanna waa ay dileen waxayna ugu baxdaa inay qofka intii dilaan haddana ay ka dhigaan boombale waxaana ka dhammaatay naxariistii oo dhan sawirada ayay ku mashquulsan tahay waa ayna fiirfiirinaysaa ilaa ay markii dambe sirtii oo dhan ogaatay isla markiiba Bow oo falaar ku taala ayaa gurigiisii yimi halkan ayuu ku qarsan yahay Nayg halka sidoo kale Carol ay hoos gashay miiska hoostiisa Bow waa uu soo dhaqaaqaya laakiin markiiba walaalkiis ayaa imaanaya kadibna daaqada ayay ka fiirinaysaa Carol waxayna arkaysaa saaxiibada in la leeyay dhammaantood meydkoodina uu wato ninkan waa iska ooyeysaa Carol waxayna ogaatay in iyada iyo walaalkeed kaliya ay nool yihiin halka tiimka intiisii kale oo dhan ay baaba'een Bow iyo walaalkiis ayaa halkan isku canaananaya waxa uuna weydiinaya cidda dhaawaca u geysatay halka Carol ay ka daawanaysa miiska hoostiisa walaalkii waxa soo gaaray nabar kadibna waxa uu hagaajinaya walaalkiis nabarkii soo gaaray nasiib darro Bow waxa uu maqlay codka Carol kadibna waa uu raadinaya gabadhii Carolna waa ay ka baxsatay miiska hoostiisa iyadoo kortay xagga sare ee guriga Nick waxa uu soo galaya qaybta laga maamulo korontada kadibna waxa uu shidaya magaaladii oo dhan korontadii Bow iyo walaalkiis waxay ka arkayaan daaqada waxayna ogaadeen meesha ay
joogaan isla markiiba waxa uu imaanaya Bow walaalkiis isagoo laba mindi gacanta ku sita waxayna isdagaalayaan Neg waa uu iska celinayaa laakiin nasiib darro gurigii oo dhan waxa ka kacaya dab Bow walaalkiisna wajigii oo dhan ayaa dhalaalaya waa ay soo cararayaan laakiin markiiba waxay sahlayaan Neg iyo Bow kadibna way isdagaalayaan laakiin Carol ayaa isku daysay walaalkeed ka celisay ilaa uu markii dambe feer wajiga ka dhuftay si xun ayay isku qaraacayaan Neg waxa laga gariyay lugta mindi halka Carol ay ushan kaga dhufatay wajiga waa ay la dul tagaysaa si ay u disho madaxii oo dhan ayay ka burburisay laakiin markiiba walaalkiis ayaa dabka ka soo baxay kadibna waxa uu dul imaanaya walaalkiis oo la dilay isla markiiba waa uu ka daba tagayaa isagoo mindi wata waxaanu doonayaa inuu dilo Carol halka Carol walaalkeedu iska saari laayahay mindida si uu caawiyo walaashii qolkan ayay isku soo xirtay laakiin qolkii ayuu soo jabinayaa waa uuna soo galay waxa uu doonayaa inuu dilo laakiin markiiba Neg ayaa soo ordaya waxa uu la dagaalamayaa ninkii balse nasiib darro mindidii ayaa lagu qabanayaa Neg halka Carol ay mindidii walaalkeed ka soo saarayso kadibna waxa ay caloosha ka gelinaysaa ninkii halkaas ayuu ku dhintay Bow walaalkiis Negna waxa uu tuurayaa ninkii isagoo dhulka ka baxay kadibna waxa uu ku dul dhacayaa walaalkiis oo meyd ah Carol iyo walaalkeedna halkaas ayay ku badbaadeen daawadayaal filimkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay tan iyo inta iskaga imaan doona muuqaalka xiga waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad like saartaan channelkana subscribe tiraahdid mar kale waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka